وين ما نبذبا قدود ما نبذبا قلت عيوي ما نبذبا سو سلامي كيغو ما نبذبا هرقيسوي ما نبذبا وصاصوي ما نبذبا لا ساعانو ما نبذبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبه ونكن صاحب بيال caawa waxa weeye 13ka bisha July 2020ka madashan quruxda badan waxa aan u fadhinaa in aan ku xog wareysano safar oo badidiis ku maray geeyga Soomaaliyeed Cabdishakuur Cali Axmed Sheego oo ah abwaan Soomaaliyeed kana tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed Cabdishakuur muddo dhow ayuu wuxuu galay safarka wuxuu ku maray dhul fara badan oo isaga nooga sheekay doono boardkan gadaashida ku xardhan waxa uu sheegayaa ama ku qoran erayo iyo sawirkiisa isla erayada iyo xogo kale oo dheeri ah oo ku saabsan safarkiisa ayaan rabnaa inaan kaga wargurno Soomaalida waagii hore marka ay rabto inay kala wargurno caways bi isugu imaan jireen kan waa cawayskii oo laga dhigay magaalo iyo hool iyo kaamirooyin loo shiday marka dhamaantiin si farxad leh si xushmad ku jirto ayaan rabnaa inaan isku dhageysano wanuga mahad celinayna abwaanka sida qaaliga ah oo ugu howlay in uu safar galo haddana safar waa la galaayo xogta in la ururiyo inaad ku tala gashaa ka horeysa haddii aad safarto oo dhul fara badan aad marto waxa jira xogo iyo waxyaabo badan aad la kulmayso haddii marka aadan meel ku qoranin waxaad noqonaysaa qof uu iska socdo qarash ka baxay laakiin waxa aaminsanahay in waxa la yaab leh oo hayo maadaama si hordhaca kali aan soo aragnay aad buu ugu mahadsan yahay waxaan rabaa laakiin munaasabada kelmadii lagu furayay inaan ku soo dhaweeyo shakhsi kamid ah asxaabtii soo agaasimay barnaamijka waxa soo agaasimay ururka Hangobeed oo ah urur wadani ah madasha furan aawadeedna sidoo kale waxa fadhiya xubno kale oo ka baxsan oo kamid ah dhalinyarada ugu firfircoon magaalada Hangobeed ayagana waan uga mahad celinaynaa sida garashada leh ay ugu howleen barnaamijkan Cabdiqani Cali Aadan waa xubin kamid ah agaasinka barnaamijka kana tirsan isla ururka Hangobeed ahna asna abwaan Soomaaliyeed Cabdiqani Cali Axmed soo dhawow munaasabadana noofur bismillaahir rahmaanir rahiim hadii wanaagsan saaxiibayaal caawis wanaagsan dhamaantiin walaalaha qiimaha badan caawa meeshaan jooga ayada quraan ku bilaabay xamaada waxooga baan ku safaray bismillaahir rahmaanir rahiim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad intaas ka bacdi oo aan ayada quraanka saaxiibkayga codsaday inaan ku bilaabo ka bacdi barnaamijkaas soo gudagalayaa ku soo dhawaada horta marka koowaad walaalaha qiimaha badan barnaamijkan oo la yiraahdo ardayga Hangobeed ardayga macnaha waxa weeye caways marka dhamaantiin ku soo dhawaada cawayska Hangobeed halkan waxa fadhiya walaalo qiimo badan ku waxaan salaamayaa gudoomiyaha ururka Hangobeed Maxamed Islaan Fiqo walaalkay Cabdisamed Dool oo ah madaxa xafiiska siyaasadda ee ka socda ururka Hope Generation waxa kale oo nala jooga naadiga akhriska qoraalka Banaadir walaalkay Cabdiwali baa ka jooga sidoo kale waxaa nala jooga Cabdiraxiim oo Sooyaha ka socda abwaan Mare baa asaguna jooga dhamaantiin iyo walaalaha kale qiimaha badan abwaaninta nala jooga sida abwaan taagana iyo walaalaha kaleeto abwaanka aan caaw u casuubanahay oo caaw noo sheekayn doona noo cawayskana madaalin doona xog badan oo qurux badan iyo taariikh badan nasiin doona abwaan jooga asagana waa salaamaya intaas haddaan ugu soo laabto salaanta waxaan rabaa inaan u gudagalo barnaamijka caawa aan u joogno waxaan u talagalnay inaan saan yar u qabsano magaalada xoogaa cudur iyo wax ka jiraan baan qaabkan yarka inaan u qabsano oo walaalkeen aan ka qabanno barnaamijkaas baan ugu talagalnay ardayga Hangobeed
sida ogtihiin ururka Hangobeed urur dhalinyaro waxa uu ka shaqeeyaa arrimaha bulshada iyo horumarinta bulshada marka qaybta arrimaha bulshada ururka baa waxa soo qabanqaabiyeen barnaamijkan cusub oo la yiraahdo ardayga Hangobeed barnaamij wuxuu noqon doonaa socda oo dhowr bilood mar la qabto waxaan ugu talagalnay in dhaxal uu ku reebo ummadda dhaxal uu reebo arda waa caways marka habeen kaste qof cusub ama qof hal doora aan ku wareysan doonaa oo meeshaan la keeni doonaa ka bacdina wuxuu sharixi doonaa mowduuci markaas hadda walaalkeen safarka ka imaaday wuxuu noo sharixi doonaa safarkaas dheer oo soo maray ka bacdina hal door abwaan ha noqdo taariikhyahan ha noqdo qoraa ha noqdo habeen kasta qof baa halkaan nagu cawaysmi doona nagu casuunaan doona oo halkaan taariikh noo reebi doona insha Allah tacaala caawa barnaamijka u joogno waxa weeye sahankii maqnaa muxuu sidii ba horta halku dhig looga dhigay walaalkeen abwaan jeega oo caawa marti noogu ah barnaamijka wuxuu galay safar wuxuu tagay gobollo badan aad u tiro badan gobollada Soomaaliya intooda badan wuu tagay meelo badan ilaa halkaan buu ka tagay ilaa wuxuu tagay Djibouti wuu tagay Jigjiga wuu tagay gobolladan dhexe ilaa Nugaal waa tagay ilaa xagga iyo Burcayto dheer waa tagay meel badan buu tagay soo noo faahfaahin doona xog tiro badan tagitaanka marka qaar qofka caadiga intuu safar meel badan ku maro wax laga yaabo inuu wixii uusan il badan ku fiirin laakiin abwaanka iyo qoraagu meesha ay maraan wax adigu aad ku arkin bay ku arkayaan marka safarkaas qiimaha badan waxaan ugu talagalay walaalkeen xogtaas uu soo arkay inuu nooga warramo dalka waxa ka jira taariikhda uu soo arkay xogta uu soo arkay juqraafi ahaan caafimaad ahaan bulsho ahaan waaqic ahaan inuu nooga warramo ugu talagalnay aan caawa ka qabanno markii xog la helo oo bulshada ay xog dalkii sidoo ahaa xog laga helo baa wax la ogaanayaa waxyaabaha sababaha jira iyo waxyaabaha loo baahan yahay iyo dalkeen waxyaabaha ka socdaan ogaan doonaa marka maadaama dhalinyaradii aan nahay oo dhalinyaradii Soomaaliyeed hal doorkooda qayb kamid ah caawa halka ay joogaan waxaan u talagalnay inuu walaalkeen barnaamijkaas u nala wadaago mar kale waxaan leeyahay walaal joogo soo dhawow aad baana kaaga mahad celinaynaa isxilqaankaaga safarka qiimaha badnaa oo gashay waxaan hubaa inuu wado xog dhaxalgal ah xogtaas dhaxalgalkaana uu reebi doono insha Allah tacaala asagana ku soo dhaweyn doona ma inuu ku dheerayn doono walaalaha caawa noo jooga oo martida noo ah oo hadda aan sheegay walaalkeen Cabdisamed iyo abwaaniinta ayagana gadaal baan ka dhigeysan doonaa insha Allah tacaala marka hore waxaan rabnaa caweyska inaan walaalkeen abwaan jooga caawa aan dhageysano xog qurux badan buu wadaa taariikh buu wadaa asagana bal wixii uu soo arkay safarkii uu ku tagay iyo wixii uu ku soo arkay inuu caawa nala wadaago barajeen insha Allah tacaala marka waa mahadsantihiin soo dhawaada ardayga Hangobeed iyo caweyska Hangobeed soo dhawaada caawa habeenkiisa koowaad waxaan ku bilownay abwaan jeego iyo safarkiisii kadibna uu socon doonaa waan mahadsantihiin assalaamu calaykum soo dhawow miiskaaga والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنكون سلام يا قف كسر مقامك يا ميشو فرديو وحنكون مع علينا يا مركو وعد الله سبحانه وتعالى سوكا كان سنة بضة هول كان يا أرداغن Hangobeed oo aynu soo qaban qaabiyeen dhalinyaradaas ah mataanahayga aan oran karo ama gacmahaygii waxaan ka mahad celinayaa iyagana meel ay joogaanba dhalinyaradii sida diiran socdaalkii nagala qayb qaatay nagu soo dhaweeyay naguna sagoontiiyay meel ay joogaanba waxaan rabaa bal inaan haddii ilaha idmo waxyaabihii aan soo aragnay ama wax ka soo qoray idinla wadaagno si faahfaahsan sahan wuxuu yimaadaa 3 seebad buu ku yimaadaa ciwaanka waxa inoogu qoran sahankii maqnaa muxuu sidii sahan wuxuu yimaadaa 3 seebad buu ku yimaadaa waa mare xilli jiilaal ah
ama roobku jeensaday oo daaqa xooluhu uu gabaabsi xoogaa noqdo ama dulin uu ka dhasho meesha oo meel kale loo digaroogayo waa marka labaade marka ay tahay xilli abaar ah kulul xaaluf dhaco oo meel kale deegaan kale uu roob ka da'o baasahan yana loo diraa waa marka saddexaade waxaa iyana la diraa ama ilaalo la dhahaa marka laba wadan ama dee laba beelood ama laba cid is haysana waxaa la diraa waxay yidhaahdo ilaalo dee ama sirdoon ama sahankay u wey sahankan waxaanu ahayn xubno dhowra wuxuuna nagu dhashay mid ka horeeyay oo noo suurtoobi waayay oo la oran jiray ama ciwaankiisa aan uga dhigay quusan waa kabacdi ayuu kana nagu dhashay waxa ugu heliyay sahankan ama socdaalkan rag dhowra oo ay ka mid ahaayeen Irshaad Maxamed Cumar oo Soomaali galbeed aaday aan u diray Cabdulqaadir Weerax oo caawina la jooga isna oo aan u diray isagana Baaya Bakool Gado labada Jubbo iyo Shabeellada iyo ilaa Gaarisa dirir Seermo Weydo nin la yiraahdo Cabdi Khaalid oo isna gobolada waqooyi aan u diray Maxamed Yuusuf Duurgal oo isna aan u diray Mudug iyo Bari kaygu wuxuu ahaa marka kormeer iyo xog ururin ilaahay idinkiis wuxuu inoogu qabsoomay ama lagu soo dhamaaday si qurux badan marka aanu soo ururinay xogtiina aan soo ururiyay aanu go'aansan inuu noqono wax dhigana ku soo saaro oo ku soo baxo haddii aan idin gobol ama ceel iyo carshin gobol iyo degmaba ama magaalo wixii aan soo aragnay ama aan soo ururiyay aan qodob isu dul taagno waxaan u malaynayaa inaynan ka go'yoon karin caawa iyo Britain waxaan u malaynayaa haddii aan mid idinka sheekeeyo isu dul taago in barkiin caawo ama subaxii fardihii dayn la joogay ay heensaysan lahaayeen shalmada saar lahaayeen koorahana u radan lahaayeen aanana ku qaadan lahaayeen sibraar subag iyo hilib oodka ana ku qaadan lahaayeen qumbihii tagi lahaayeen si ay u soo arkaan waxyaabahaas xiisaha badan quruxda badan soo dhaweynta kamid ah soo aragnay qaybtii kamidana ay baabuur shida lagu shuban lahaayeen kuna fakari lahaayeen idinka horeyn marka ay tagaan ama gaadhaanba gobolkii saliidda gobolkii wax soo saarka gobolkii cambaha gobolkii lo'da waa Shabeellada Dhexe oo ay marayaan Hiiraanna oo ay soo dhaweeyaan dadkii u gaarka ahaa daris wanaaga iyo martisoorka waxa ugu horeeyay lagu marti qaadan ay noqon lahayd cambuulo markaa soo gooday oo curdina iyo bunkii iyo saliidii macaasarada oo kulul oo qandaca caanihii lo'da oo fresh xoorkan laba taako ka sareeyo lagu soo martisooro marka ay tagaan ama barnaamijka soo baxaan inta ishooda qabato ay ka badan tahay dhirta aan ka sii qoray wax soo saarka ahi 100 iyo dhowr geed oo kala nooc ah oo nimcada Ilaahay siiyay waxa ugu horeeya aan isku qabato laga yaabo inay noqon lahayd bas sinta geedka la yiraahdo tusaale ahaan ay soo qaato isagoo curdina isagoo midhihii keenay isagoo hogeysan isagoo la shiidayo isagoo saliidii dhinac taalo isagoo ilaa 9 nooc ah markay ay joogan habeenkaana
ama maalintaaba qalabkii aad ka carowdaan oo ay tagaan gobolkii Cibta waa Hiiraane gobolkii cambihii qarihiisu ahaa dawada maydha kaliyaha iyo beerka gobolkii aad ku maqashay in badan suugaanta oo hablaha reer Hiiraan aad ku haysaan oo uu lahaa ama hablaha lagala haasaawayay la lahaa xidid baan la noqon waalidka oo xajkana geyn kadib aan xiriyaha keenana aan u soo xulay xigtadii qarabada ana xoolo badan siin degmada xaggeeda eegtay xaafad garanayso doobaan u soo xiri adiga ku xasuustaan si loo helo gabadh habar reer Hiiraan hablihii uu ka warramay Hadraawi ay ku marti qaadaan kuna sooriyayaan marihii qaaliga ahaa ee Cibta oo dhowr nooc ah iyagoo karsan dhinac ka saaran tahay maleegii webigu ka saaran yahay dhinac koosta ka saaran tahay dhinac ay ka saaran tahay yaayadii wadanka soo go'day oo beeraha ka soo go'aysay oo gabadha cuntay laba cash ka bacdi masbuuc u ekaanaysa yaayadii afkeeda u ekaanaysa lixdan ay kaga jirto caanihii looda oo garoora subag sixina oo marka dabka laga soo qaaday ay kaga jiraan qalabkiina lagu dalxiiskeeyo beerihii webigii oo aan aaminsanahay waa gobolka kaliya aan jilaal iyo doog toonna laga waayin caana laga waayin waa gobolka aan aaminsanahay hadda waxaanu xayeysiinaa aynu aragnaa waa caana ka yimaada holin Soomaaliya caanaha liidada inta badan laga keenaa laakiin waxaan aaminsanahay dib kuweenaas looda ku dhaqanta Hiiraan iyo Jawhar haddii iyada la firkooda inay warshadaha ka badnaan lahaayeen iska bada kuwa bacrimisay marka aad tagto banaanka u baxdana webigii oo qulqulaya oo aan aaminsanahay haddii hooyo kastoo joogta Hiiraan oo la u dareerto ay soo qaado gaawe oo lagu daro webigaas inuu caana wada noqon lahaa nimcada tal awgeed marka aad istiraahdo ilowdo sahaydii aawadatay oo sidatay oo hay subagii hilibka fardihii aad soo jaraaristana aad halmaanto kaga sii tagtoba kaga sii tagtoba meesha la yiraahdo Jawhar oo aad aaminsaneen inaad soo socotay oo ay meesha ka baxaan ciwaanka weedha u sareyso ah kala weyn wadada sii mariya weedhi la yiri oo aad meesha ka saarto Soomaalida suma socon karto hadab dhaqaaqdo waa lagu cunayaa waa lagu dilayaa waad gaadoomaysaa waad gaajoonaysaa waad haraadaysaa meesha ka saarto oo aad istiraahdo ama istiraahdiinba inaad walaha meeshana wada Ilaahay ku siqray qaybtiin anagu inta dhaafmeen inta anagu ogta markay joogaan habeen iyo maalintaasna subaxii awal farday saaraayeen iyagoo lugeynaya ka lugeeyaan oo galaan gobolkii aftahanka gobolkii murtida gobolkii balaaqada gobolkii subaga waa galgaduude marka aad tagtaana ladinku soo dhaweeyo ladinku marti qaado ladinku maamuuso waxa marti lagu maamuuso waxa ugu qaalisan qaadidii deexda daaqay lag sida aad u dhageysanayso waa gobolkii murtida gabayo kala nooca kala saameyna kala nabar kulul kala duwan kala taariikha waa gobolkii ninkii la oran jiray si dheer dhoob uu ka soo baxay waa gobolkii uu ka soo baxay guure waa gobolkii uu ka soo baxay ninkii la oran jiray kulan waa gobolkii murtida sida gabayo kala nooca kala saameyna lagu wado awal kuwan habeenii maalin baa joogtay baa laga yaabaa ama laba cashe aad kala garan weydo warma bil baa joogtay
ma habeen baa joogtay ma saacad baa joogtay ma maalin baa joogtay daqiiqad joogtay marka aad joogtaanna idinkoo sii macaansanaya murtidaas taariikhahaas sheekooyinkaas xiisaha badan aad u gudubtaan gobolkii xiliyaha geyga Soomaalida gobolkii halgamayaasha gobolkii ay ka soo baxeen haddana joogaan sidaan aaminsanahay kuna sii arkay anigu markaatina ka ahay kumanaan Cabdullaahi Ciise Midhana gobolkii maraan ka sii xog waramayay oo nin reer hawda oo saaxiibkay ahaa xogaal aan isu ahayn ugu xog wareysanayo aaminsanaa oo la lahaa laguna sheekeeyay sida badankeena leen ka dhaciyayba reer mudugu waa niman indha adag reer mudugu dadka laayaan reer mudugu dad isfiilata qaba isagoo aniga walwalsanaa uga wareysanayay waa muduge warma nabad qabtaa anna aan la yaabanaaba murtasoorka iyo maamuuska meesha yaala oo aan islahaa malaha kaliya baa ilaahay albaab gaar ku furay laakiin ilaa aan 3 jeer ku soo laabtay oo aan hubiyay aan xaqiiqsan waayay aan ugu xog waramayo lahaa dirirow daboob gabay haday daawo noqonayso dar ilaahay weeye runtaan ku dul maraya ee gaalkacay watan daraad daawashow tagay watan ka daaniyo ka daan dool ku soo maray hablo doora baan soo arkay oo doorin midabkii طريق حمد موي bulshada yar kan sheegay waa gobolka ay joogaan kumanaan Cabdullaahi Ciise Midhana waa gobolkii baaritaan aan sameynay ama sameeyay xiliyaha geyga Soomaalidu degto xudunta hadii caqabadi imaanayso ama la damco fiila in la xiro meesha laga xiro hadii ay furmasana laga furo haddana aan rajaynayo inay noqoto meeshii daawada ay ka dhalanayd inay ka dhalanayso waa dareensanaabe ilaahay idinkiis marka aad joogtaan oo sida la idinku sheekaynayo dhacdooyin iyo taariikho iyo dhul kala duwan la idinku marti sooro baashil ila falfaliirta oo lagu kariyay qare oo qofkaan aqooni haddii waran dabada laga hayo waxay maqal jiray waxaas la iska qaban kare qofkaan aqooni suu u wado suunku u go'ayo isu dareensanayn gobolkeedii waxaad maqashay waa oomane iska daa wax kale waxa lagu kariyaa cuntadooda qare meesha ka gaareen dib dad maqashay waa oomane qare muxuu baxaa ma oomane baxaa mise dhul biiro ka baxaa sida sheekooyin xiisa badan iyo aniga caaway raac iyo aniga ila joog iyo ana marti barito ku marti qaadaya iyo ana ku dalxiis keenaya iyo anu raacaya isugu ka haysto ay kugu qaadanayso isbuuciyo bilo ay ku qaadan lahayd muddadii xigtana idinkoo lugeynaya tamashlaynaya gaangaambinaya aatataan gobolkii Ugaadha gobolkii Geela waa nugaal waa meeshuu lahaa awaankii reer galgaduud dalawa nugaal dogsatiyo dawga albulale marka aad tagtaana la ku marti qaado la ku sooro dambargeel oo markaa gaaweel la hogeeyay darantii lagu hogeeyay ama geedka la meegaaga lagu culay lagu soo lisay oo aan aaminsanahay hubana inay yihiin daawooyinka aynu sadab wax ku lagu daaweeyo kuwooda ugu qaalisan laakiin leena ka dhaciyay qofka cuna hilibka geel iyo caanaha isfiirata ku dhacdo waa xanaaq badan yahay muddada xigtana aad tagtaan gobolkii Uduga waa bari gobolkii noolaha ku nool badweynta oo ahaa xarumaha gobolkii Khooriyada gobolka ay tagaan biyaha ka daa silsilada golis hawd mudug iyo nugaal biyaha ka daa roob ka daa dhibiciisu ay ku horaan waa gobolka leh waxaanu maqalaa laba raas kaamay raas asayri 7 raas waa gobolka aan ka soo tirinay kana soo qoray 8 khoori 8 tog oo midba mid ka daran yahay
oo biyaha ka daagayga Soomaalidu ay ku daraan halka badda kaga daraan waa biyaha sababay inay u noqoto xarumo noolaha ku nool badda ama malay ha ahaato ama noocyo kale ha ahaato waa gobolkii uu ku dhashay cabqarigii Soomaaliyeed ee la oran jiray cali uu lahaa cabdi cali boosna odaygii kalluun quuta koortiisu dami mayso kohan mayso naagtiisu computer shidan weeye kaabaha cilmiga weeye koriyaha aqliga weeye waa gobolkii uduga oo de markaad labisato waxaad ogtihiin waxa la ismariyo waxa ugu dambeeya sabaarfan yar ma la isku buufiyo ya laakiin xitaa midhaha hadaad cunto baad carfayba sida wax kale midhaha ka soo baxa ka soo gaadaad cunto adaad carfayada waxba ismarinba waa gobolkii lahaa calb waxaan maqalaa cal madoowe cal miskeed waa gobolkii uu ka soo gabi jiray cali cilmiga fere ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo waa gobolkii ku dhashay khaliif sheekh maxamuud waa gobolkii mar aan ninkii bedelay cali cilmiga afyare halkan aan ka salaamayo waa saaxiibkii Muuse Cali Rabaaxe maraan anoo jecel isla sii joog calmiskeed iyo bari haddana deedanta iyo duruufuhu ay saamix weyday laakiin aan sii jeclaa aan uga soo xoguramayay aan uga sii xoguramay anaka soo baxay uga sii xoguramayo lahaa Muuse macnaha gabay adaa maahir ku ahaayee boosaaso maantaan ka baxay mahurtadeeni inkastoo malayga gurtaan nimankii miinayay waa nimanka sameeyay ama halku dhiga ah ama magaca ah burcad badeeda la baxay laakiin warshadaha ay yaalin meesha inkastoo malayga gurtaan nimankii miinayay calmiskeed indhihii milicsada kama maqnaadaan muxorka iyo maqaariga ka baxa meeyad iyo foox muraayiyo maraaga ka baxa muraayiyo maraaga ka baxa meedig iyo fooxe muxorka iyo maqaariga ku filan mooska noo dihinay anigoo maruriyoonaya baan maandhow ka tagay meermeerkii waxaan sii mariyo markii ceel daahir midigale markii aan tagaan maan ku idagay maasha Allah barana waa miicsan doonaa anigoo isla maruriyoon isla yaab sii jooga bari yaa ku sii noolaada yaa taga qalabkiina xeebta geeli inagu waxaan noqonaa geel daaqa hawdka laakiin geeli dabaalanayay badweynta cunayay canjeelka caanihiisuna dee aan sheegi karinba waxaynu naqaanaa ama aad aragtaanba waxyaabaha noolaha ama dee daanyeerku wuxuu ku qaadaa dhabarku ilmaha ku qaadaa ama uurku ku qaataa sooma hooyadu way xambaartaa waa meeshaan arkay oo ugu tagnay geel aan ogolayn in nirigtu ay ka marto xagga badweynta laakiin ogol in nirigtu ay ka marto xagga bariga iyo canjeelka iyo geedka si ay ugula tagin badweynta nirgaha yar ugula tagin waa gobolka haddaad tegi lahaydeen aydan sanad iyo maalmo toonna kaga xisa dhici lahayn oo mar laydinku marti qaado fingarkii firtuurihii girilihii shangahaygii hoolfiishkii kubanaanka noole ee ku nool badda marba mid inta la soo qabto isagoo freesha la soo hordhigo carfaya oo geedeysani ayaan ka dhigi lahayn muddada xigtana sida qaybo gobol ugu sii haraso intiina tagtaahay aan aaminsanahay haddaad tegi lahaydeen gobolkii aan taan waxaan ku sifeeyay ama ku suuray garan waayay aan haddii meel adduun noqon adduunka haddii meel ilaahay oran lahaa waa jannadii sanaag bay noqon lahayd aad tegi lahaydeenna kaba sii xag jirtaa gobolkii xadaaradda gobolkaan lahaa intaan waxaan ku suureeyay ama ku sifeeyay garan waayay mar aan tegay oo aan tegay laagii shimbiraladis beerihii midhisho daalo xiis iyo maydh ceeri gaabo oo cimiladeeda aan lahayn gaajo aan lahayn haraad aan lahayn kulayl aan lahayn dhaxan saayida aan lahayn wax kastoo nafta ay dhibsato gobolkii aan lahaa
maraan ka soo xog warramayay afaray kooban haddii ay janno adduun garaad jiri lahayd koonkan ceeri gaabo iyo jeedaliba noqon lahaa jaalle jawi farax le cirko jiqo daruur jaad walbaba yeesha jidhaamaha biyuhu jiifiyo rahu jibaadaya dooxooyin kala jaada oo jabaqdu yeedhaynin intaas oo naftu jeceshahay bay isku jaan go'an ha yeeshee bulshada joogta baa jaahil taa ka ah ee jeeraad ku dhaafay nimcado way jindhariyeen gobolkii aan ciwaanka uga dhignay gobolkii xadaaradda kuna sifeeyey in haddii ay noqon lahayd meeli janno ay noqon lahaa gobolkaasi kuna dooday rag hortaydeena ku doodeen oo ka mid ah Cali Mooge ilaa xariista ka waraabiyay abaqarigii reer Djibouti inay tahay meeshii ay ku noolaayeen aabaheen aadan iyo xaawo aniguna aan ku doodaya lahaa ceelkii ugu horeeyay oo ay ka cabaan ilma aadan baa ku yaalay waa gobolku inaad dhageysteen balmalaya gabayga la Cali Mooge golo joog uu kaga warramayo kuna doodayeen kuna adkaystay ana aan la qabo inay tahay ee aan lahaa koonkan ilaahay markuu aadanaa keenay kobtii uu ku furay waxay ahayd furaha daalod iska daa inaad tagtaan gobolkii alla baxa iyo maamaha iyo magac u bixinta ee tog dheer iyo mashaajileystayaashee ama aad tagtaan gobolkii maroodiyada waa Hargeysa hoygii suugaanta ama aad tagtaan gobolkii qalinka waa awda leh ama aad tagtaan rays magaadada geyga Soomaalida waa Djibouti ama aad tagtaan Carta oo aan ku xasuusano inteena jiilkeena Cabdi Qaasim iyo heelkay inoo galeen walaal heel walaal dhulka aan ka sheekanayo haddii aan waxyaabaha aan ku soo aragnay ama ka soo qoray waa ku dheereeyay aadii qodob sidoo taago ka warramo waxaanu ka gayeynano caaway Britain ma aha laakiin waxa ay tahay muhiimadu inaad ka saartaan meesha oo inta sadda in la wadaagay waa xooxdii ama waa dee gogol dhigi inta sadda in sheegay inaad ka saartaan meesha ah waxyaabaha inta badan leenoo sheego oo ah inay meesha ka bixin dhaqanka Soomaalidu marti soorkii soo dhaweyntii murtidii taariikhii hab dhaqankii xeerarkii wax soo saarkii waxyaabaha inta badan leenoo sheego oo leenu ku celceliyo si aynu isu dhiibno oo u niyad jabno oo aynu noqono ama u gaadhno meeshuu lahaa salaan carabay geeridu marba dhaadana nolosha dhaantaay dhadhamii marba ka yihiin dhereg xaraan si aynu isu dhiibno waxa lagu celceliyaa inta badan Soomaalidii hore Soomaalidii afkii Soomaali waa ka dabar go'ay dhaqankii waa ka dabar go'ay wax saarkii waa ka dabar go'ay maamuuskii marti soorkii waa ka dabar go'ay suugaantii waxba isbedelay wax ka jiraay haba yaraatee ma jiraan laakiin si loo kala dhiciyo oo aamino aynu nin kastaaba meeshuu joogo iyo gobolku joogo iyo degmadu joogo ugu go'doomo oo soo socon baa intaas lana kala dhiciyaa waxaan malaynayaa ma jirto ama waa dhif iyo naadir qofka soo qaatay manhajka ama waxbarashada waxyaabaha hadda aan idinka warramay sabab jira awgood laakiin aan rabo inaad meesha ka saartaan qodobadaas dayrada iyo dhaliisha iyo dhiilada xambaarsan niyad jabka ah isdhiibida ah inaad ka saartaan meesha raggaas saaxiibaday ahaa socdaalkana qayb ka ahaa igana horeeyay nin kastaaba meesha aan u tagayay waxaan ka sii qorayay xog waxaadna ogtiin hadaad u baxaso safar markaad tusaale ahaan balcad ba aadayso ama aad marka aadayso gaariga looma raaco Hargeysa ku geeyo ama Burco ku geeyo ama Galkacyo ku geeyo kaliya laakiin waxa loo raacaa inaad ka sii kororsato inta aad sii maraso dhirta deegaanka cimilada ciidda inta aad gaariga saaran tahay
waa muhiim inaad ku borogaraamsan tahay taas iyada ah inaad wax sii kororsato kana warrami karto haddaad 4 geed ama 5 geed oo aad arag sii qorto dadka kula saaran gaariga sii weydiiso ama 4 ceel 5 ceel oo ku faa'iido برنا كور مكرتو وحصاب بحياة إذا ما لقيناها سنا دوان يذكرون يلو ذاك الدورنا كنا درج دوتان كنا بقى دونتان وحارب أمريكا بلينا قاب سوانيسن قاب فرشحانيسن إنك صورنا هندتك كفي عن عنيقو إذا نرحل هذا كو عاجستاني هتك أفتهني ماذا يبلا قضاء له erebixinta iyo afka Soomaaliga saboolka ka ah oo aan ahayn sidii Muuse Galaali iyo rag badan oo idin kamid ah aan qani ku ahayn erebixinta afka Soomaaliga laakiin inta badan aan saboolka ahay hada ku caastaan raali hada waxaan isku dayaa balinta karaankayga Aisha idan alle inaan idin la wadaago idin ka dhaadhiciyo aad hii kacdaan hilowdaan ficilkan ku dhiirataan meeshana ka saartan qodobada dhowrka ah oo dhaleesha iyo dayarada ah oo inta badan lagu soo celiyo aad meesha ka saartaan idinku inta tagtaan soo xaqiiqsan waxa idin sheegay iyo waxa la idin sheego labadaba soo kala hubsataan bulshada lagu xisaabtamo boqolkiiba 90 in wada wanaagsanaato sababtoo ah jiilkan culasada saaran iyo way kala badan yihiin tamartoodu laakiin waxa lagu xisaabtaa boqolkiiba oo aad aamintaa inay bedeli karto boqolkiiba 10 baa bulshada bedeli karto inaad ku xisaabtanto tirada bulshada hadii boqolkiiba 80 ay wanaagsanaan weydo wax jira iyo wax soo noolaanaya iyo wax la helaya ma jirto waxa ka wanaagsan inaan ku xisaabtano boqolkiiba 10 bulshada ma heli karaa 10 kaas waxay saameyn karaan 9 kale bedeli kara sid noqon kara qaarsan karo laakiin hadii aan raahno hadii boqolkiiba 80 ama 90 bulshada hagaagsanaan weydo oo qof kasta soo orbaxahi oo sidaan aan rabnay u noqon waayo u hadli waayo u dhaqmi waayo ka muuqan weydo waynu isdhiibanaa waxay noqonaysaa tii awal baynan meel si jirin waxaan rabaa marka inaan qaab sugaasiisan horta idinku hormaro ka bacdi wixii faahfaahina aan u guda galo waxaan ka baxay halkan 9kii bishii 8aad 2019 waxaan u qalab qaatay inaan sameeyo kormeerkaas xogtaana soo ururiyo iyadoo la leeyahay mudug ba ku gadoomaysaa jawhar dhaafi meesid hiiraan iska badaayo madaxa lagu jiray oo lagu cunayaa aanan wadan qarash jeebabkayga buuxin laakiin dadka qaar lahaayeen yaa ku maalgelinaya mahayada wadata ma dawladda ma wasaaradda yaa ku maalgelinaya laakiin kalsooni aan ku kalsoonahay Soomaali inaysan habdhaqankeedii iyo xogtaan ka hayay iyo sidaan aaminsanaa ilaahayna aan tala saartay aanu maray ilaahayna uu naga wada dhigay hooyo iyo aabe iyo wixii aan niyada ku haynay inaan ka wada helay waxaan ku hormarayaa bal inaan habsugaaneed idin kula wadaago celceel iyo carshin intii aan maray wixii aan ku arkay anigoon mid cidna u eexanayn cidna qaniinayn cidna waxaysan haysan ama lahayn ka sheegeen aan ku been abuuray ama xayisiin ama gaday bismillaah waxa la yiraahdaa gabaygan cirq waxaan kaga warramayaa 22 gobol oo aan socdaal ku maray anigu 7 gobol oo uu maray Cabdulqaadir Weerax oo koonfurada iga beegan oo ilaa Gaarsiyo Wajeera intii aan maray markaa wixii aan ku soo arkay caqabaduhu meelaha ka haystaan cirqooda meelaha u yaalo habka loo sixi karo oo dulduleelada
ama mas'uulisha lagu gufayn karo baan isku dayay inaan idin qeexo idin saro idin sarbeebo idin saafo idin bilaahay bismillaah inna wadba wuxuu yiri inna wadba waa tanan curin caynka maansada ee carabkayga watay dibnu codowgu luuqayn aan casuumo waa tuu wax badan igu cilaalaa ragna wuxuu cuslayo murtida kaga cad goostaa in niman yahow cibaarada adduun gelinba waa cayn niman yahow cibaarada adduun gelinba waa cayn markii nabadu kaa caarido ciidda qaban weydo walaalka hadduu amal xun yahay waa la celiyaa cuqaal iyo salaadiin markii loo agdhigi waayo siday caadadu ahayd haddii lagala caal waayo culimada xaggooda tashiga loola cararaa caynaana ilaah laga baryaa caymo iyo khayr caynaano ilaah laga baryaa caymo iyo khayr jilaal culus markii uu dhacay coodkuna ay laado ee caruurta oodaani helin caana lagu siixsho cirkan caadba saareen hadduu dib u cusboonaado waxay daruuri curataa markuu caadil shubaya dhirtu waxay caleen bixin kartaa daaqi karo coodku markii ay cabaan xididadu ee ciiduna qoydo waxay cudud ummadi yeelataa laga cabsoonayo markii ay cadaawaha dhex yaal carare leesaay war ceesaan ma doojaan intay cariga joogtaa war waxaad ka saartaan meesha oo waqti uusan idinkaga lumayn waxaan idhaahdaa siyaasadda raacraaceeda iyo lagorguurkeeda intaad dhagaha ka furaysataan oo indhaha ka dadataan waxaad u jeesataan keliya dhanka samaha dhanka dhiirigelinta dhanka gubaabada laakiin haddii aynu la guurguuro siyaasadahan aan xididada u sii qodnayn ee ah Soomaaliya dhexdeeda waxaan iyo jab iyo dayro iyo dhalin lahayn kala kulmayno Soomaa waxay cudud ummadi yeelataa laga cabsoonayo markii aclaawa dhex yaal carare leesaay war ceesaan ma doojaan intay cariga joogtaa war caqabadaha ina haysta iyo ciriqa shaybaarka cilmi baaristoodii si aan caadka uga qaado cadaybihiina aan soo helay caawa sugayseen casar liiqa waa taan ka baxay xamar calaysow waa taan ciyoon koray sangihi caynabka ahaa agta waxaan u soo wadada ciira kiciyaaba jawhar oo cusub si dhex maray oo caws qarinayo misna caata awgeed socon agaha jiideysa warinta inta faani jawhar haday maxaan ku yiri aan su'aalaha soo qaadanayay haddana waxa la ka dhaadhiciyaa qudaad ka soo ka timaada jawhar ama ka soo go'daahay in laba casho hore soo soconayso aynan aadi karin tagi karin booqan karin beer ka samaysan karin waa been wad aadi kartaan waa tagi kartaan cid wax dhibsana ma jirto inta tagtaan oo 20 iyo 30 isku raacdaan oo beeraha xariga wada ama afsaarta la idinka qaado baad bil iyo sanad iyo isbuuc inta aad ku soo jiri kartaan cid ilaahay abuurtay oo idin qalaynaysa ama idin qolaynaysa ama idin qalaysana ma jirto jawhar oo cusuban si dhex maray oo caws ku qarinayo misna caata awgeed socon agaha jiideysa hiiraan oo abaar laga cawdo oo ciir la luulanayo hay'adana codsiga loo dirsado oo la cararayo marka abaar dhacdo ama colaad dhacdo ama imtixaan oo dhaco waxa kaliya in la bariyo xaqiisana loola cararo loo alla bariyo loona laabto ay tahay waa Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala inagana saari kara keenana inagana saara
laakiin haddii aynu niraahno haddii qodaxii muddo hay'adaha caalamka ay soo gaaraanay UN-kii aaway aan gargaar baan rabnaayay haddaynu niraahno dee ka imaanaya ama ku waxaan ilaahay kaga soo qaaday inay ku keeni karaan ma jira waa ma soo ma laakiin marka caqabad timaado ilaahay baa la baryaa gacmaha loo dhigtaa keenana isagana saara tadib cayn bacayna iyo waxaan caris jibaaxaaba ceel buur iyo camaaran mardi cadala leelkii hobyo iyo cadaadaan tigiyo cabad waq subax inkastoo colaadihii dhacay iyo cagagubkii daayay hadday calawdo xaajadu abwaan waa cirbixiyeen hadday calawdo xaajadu abwaan waa cirbixiyeene cali 15 iyo burciyo daahir cali suudi murtiday curshaan baan bulshada cidi u weelayn kuma amal falaanintii hay soo celceliyaan kuma amal falaanintii hay soo celceliyaane gaal kacayo cilcilowga baa cawna loo dhigay inkastoo bulshadu amal la'aan ay ka cabanaysay cududooda kulama soo baxaan midhaha ceedin cududooda kulama soo baxaan midhaha ceedine calaamada dhex yaal iyo ma arag calaamad qaybshan haddii la ka dhaciyay gaalkacyo waxa mara darbiga cagaaran ama khad cagaaran ama waxa loo dagaalamaa la isuuna gumaada la isuuna laayaa filin la dhaho hawiye daarood wax ka jiraahi ma jiraan darbigii baarlina ma maro cid isku haysana ma jirto ee waa maqaaxi shakhsiyaad iyo koox gaar ah shidan san hadayba idin sheegay aniga waxaan tagay isleeh tolo marka gaari ka degto labada dhinac kee lagu malaynayaa ma mid wiifta ku imaanaysa nimanka reer mudugo ma ka diiran doonaan waxa sideetaba ayaan ka degay gaariga una xiisa qaba darbigii aan aaminsanaan waxa shub oo aan ilaa maanta garasay maqlayay ahaa waxba cagaaran markaan ka degay gaariga baan ku yiri mootadii waxaad geesaa darbiga cagaaran kaas wuxuu dhigay meel suuqa ganacsi ka socdo laba is eegaysa ayna jirin baabuur is dhaafaso bashaashka hadalkeeda daa hooyooyinka baatiyo wada calana ay saa ugu jeexayaan mitrinayaan saan ku yiri inaadeer reemuhu wixii la sheegay marun baa waxay dhigtay lacagtan ku kordhinaya darbiga gaarsi hadii lacagta sariigtay aan ku soo heshiinay أنا أكون كورني دربي جارسي وعن كقرأ حلمات عضو بدن وآه إسبارده وقلبك كقلق حيات وحوها قبلك أنا وش على أنت المريي أما كنا قاعدو شعلا هينا تقول لبدي حنيودي إن هذا ندقو كلام من نقطة إذا ما لا كنا حديد ديستو ولي بقى لحديد ضد النمكة اللي بحياه وحنيه الليلة وحوها قبلك ugu badnaa ee igu qaadatay inaan caqabada ama ciriqa meesha u yaalay cid keentay aan raadintiisa ay ugu badnayd waqti ugu badnayd ay ugu qaadatay markii aan tagay darbigiina arki waayay laba isaastan arki waayay dadkiina kala sumad arki waayay wax ay ku kala duwan yihiin arki waayay waxaan meesha ka tirtiray oo ka saaray waxa yiraahdo calaamad ama wax kala qaybiyeen jirin laakiin waxaan xaqiiqsaday waxaan leena ka dhaadhiciyay lagu sheekeeyo inay tahay taayad oo qowr xire kuma heshiisay loo qoori laayahay gobolkii ragga gobolkii geeyga xiniyaha geeyga Soomaalidu degto loo qoori laayahay gaalkacyo cililowgii baa caawna loo dhigay inkastoo bulshadu amal la'aan ay ka cabanaysay cududooda kulama soo baxaan midhaha ceeriine calaamada dhex yaal iyo ma arag calama qaybshan Puntland cishii maray oo lagu caweynayo caasimadii Garowe tagiyo cirif nugaaleed inkastoo kulay caday ku tahay Carabi ay keento dhalintan cod dheer ugu sharaxay ciid hodanka waxaan wada baranaa aqoon aan aaminsan anigu aad u dhaliilayo oo aan lahayn ficil iyo miradhal iyo wax soo saar
waxaan wada ku haminaa inaan wada fadhiisano wada xafiis wada gaari yar oo cad gabadh yar oo ma sha Allah dhanka midig ama bidix ka fadhida laakiin ay ka muhiimsan tahay intaynu wadadii aynu soo maray inagu oo aynu wada garanayno cid looga shaqeynay ma jirtaa aynu wada garanayno qorjubka yaqiiqa iyo qodaxda badnayd intaynu xaaqno inagu oo meeshii salaan carabi hadda ayaan ka sheegay ahayd dhamiyo marba ka yeen dhereg xaaran intii ubadkeeno ay mari lahayn wadadii shalay soo maray inaynu inagu ku fakarno iyaga iyo kuwa ka dambeeyahay iyo de ilaahay nagaba intii aynu habeenii maalin wayna siin karaaye ama isbuuc wayna u siin karaaye inaynu u beero seed u si talaalo bilahoodana ay gurtaan harsadaana aynu ku fakarno laakiin aynu dhididno ficilkana ku dhiirano kana dhabayno kuna dhaqaaqno ay tahay muhiimka waxaan tagay Garowe oo ah caasimadii Puntland ama gobolada Bari iyo Nugaal oo haddana dhalinyaradii jiilkeena ahaa meeshii la rabay inaynu ku dhaqaaqno wax soo saar beeri tabacno ficilkana ku dhiirano tay iyo suur wada xidhan oo wada sugaya xafiis iyo wasaarad iyo xildhibaan cishadii xigtaan tagay caasimadii Garowe aan tagiyo cirif Nugaaleed inkastoo kula caday ku tahay carabi ay keento dhalintan cod dheer ugu sharxay ciidda hodanka ah cadceedda dhacaysan ka baxay caydiguna seexan ceelkii qardhood baan tagay iyo boqor ku ciidaya waa carasan coodkii ku dhaqan looga biqin caal waxa mara ama afar dooxo oo qardha ku yaala oo kala jeeda oo biyaha hadda aan idinka waramayay oo geega Soomaalidu ka daahiye laba kamid ay maraan laba dooxo kamid ay dhex maraan biyahaasi midiiba markaan qiyaasay anigu hadii Soomaaliintii la soo ururiyo ninkastaba boos iyo laba boos intii lagu dhiso ay ka badnaan lahayd ama deeqi lahayd ninkasta hadii la boos iyo beertiisa ha laga sameeyo afarta dooxo ee qardha ku yaal mid hal mid oo kamid ah waa meeshuu lahaa sayidku intii la qiimeeyay deegaanka Soomaalidu degto xagee ugu qurux badan oo lahaa ma lagu daray afartii dulood oo qardho doogsatay ma lagu daray waa carasan coodkii ku dhaqan looga biqin caal inkastoo ciriqa aan ka helay cudurkan goobayay calankiisi waa ku xardhanaa la isma caasiyo cali cilmi afyare oo kala cidi ka waayeen caydiga iskoolada dhigta cod ugu deeqsiyay waa meesha habeenkan tagay subaxnimadeedii hotelkan deganaa alaasaydii hore waan waxaan kacayanoo ku kacay dhawaq golaba heesta calanka ama asaati qaranka oo ilmo yar qaadayaan waxaan isku qabtay mariyoonaysaa soo jeedaa ilaa aan saan u siraacayay heestii iyo dhawaaqii aan tagay ana macawista aan xitaa guntana darafka haysta xogaa tibuna markaa ugu badnaayeen oo ilmihii xitaa ardayda iga naxeen oo ismoodan kale aakhirad ba filmaanta ku daawan jireen ba malkamuudka soconaya ba laakiin aniga dareen uu waday codka macaan sawdka macaan ilmaha afka ka soo baxay calankiisa waa ku xardhanaa la isma caasiyo ee caydiga iskoolada dhigta cod ugu deeqsiyay cishadii xitaan tagay Carma iyo markii ceel daahir inkastoo cagaarad midi oo calan waleynaysay nin waliba intuu ciidan shuu ayma leeyahay almiskeed calulu iyo baduhu waa isceliyaan almiskeed calulu iyo baduhu waa isceliyaan inkastoo maraakiib cuyuban oo bakarinaysay casarkiina kalluumaysatada lagu cabsiinayay cilmigii badaha ku wiiqeen uma caraabayeen qori caaradii bay kaga cabaan cudud neeto
haddaan maqasheen burcabadeed inagu ma nihin wiilasheennuna ma ahayn laakiin waa fikir la rabay in lagu dego laguna xalaalaysto badaha laguna bariinsado warshadana lagu dhex samaysto waddo loo soo maray ahayd waa fikir la rabay in haddii barrigii ama soomaalidii ama ciidamadii saraakiishii ciidamada ee dowladdii dhexe soo baxay siyaabo kala duwan loo laayay ama loo dabarsaray ay dhinayd kuwii yaqaanay badmaaxyada iyo ciidamada badda iyo bariiniska si la rabay in lagu dabarsaro baa loo soo saaray filinkan ah burcabadeed waa meeshuu lahaa abwaankii reer bari cabqarigii nimankii badweyntii hindiya baad nagaga qaaday maantana waxay boobayaan beerihii iyo luulka waa meesha ay casarkii ama gabaldhaca galabnimada intay ka soo foofaan iyagoo doomo yarar wata u soo fuulayaan buuraha si ay maclintiina u gurtaan malaygana badda ugu guranayaan inkastoo maraakiib cuyuban coobakarinaysay qori caaradii inkastoo maraakiib cuyuban coobakarinaysay cilmigii badaa kuwa yiqiin uma caraabayne qori caaradii bay kaga cabaan cududda neeto boosaaso caasimadda bari oo u cuntamaysa ganacsatadii baa caasiyeen ka cokanaadeen ganacsatadii baa caasiyeen ka cokanaadeen ee calmadow cambihii ugama go'ay caanka ku ahayd cumaan iyo dubay ma camirmeen oo lagama ceesheene codkarkii khaliif baa go'aye carab ma joogteen waxaan aaminsanahay hubaana haddii boosaaso dekedeedu ama deegaankeedu siday tahay loogu hagarbixi lahaa oo 30 sano ay ahayd isha kaliya ama hooyada kaliya ee quudisa naaskeedu kayga Soomaaliyeed inta badan haddii siday tahay loogu hagarbixi lahaa aan aaminsanahay inaan Dubay iyo Cumaanba xidhmi lahaayeen oo iyada hoos imaan lahaa Cumaan iyo Dubay ma camirmeen oo lagama ceesheena codkarkii khaliif baa go'ay carab ma joogteen afarta xogaan caawa wado afarta ciriqan soo helay iyo cugashada diidhe cari hodana oo bulshada ka cokanayn aydi iyo sheebde culimada kuwan moodano keenay caabuqa dheh baran bay cabdi horri galab nagu casuumeen baran bay cabdi horri galab nagu casuumeene dooxooyin cusubkii ka baxay cawshu miranayso gargarada cagaarkaana aan cood ku meeracanin gargarada cagaarkaana aan cood ku meeracanin calcaliyada xariirada fadhiday ka cabbi waayeen ceeri gaabo cimiladeedu waa caynad gooniya ceeri gaabo cimiladeedu waa caynad gooniya cishadu ilaahay cirkaan tiirlaan celiyay taagay ciidana ka dhigay gogol intuu buuro culus saaray ceelku ka cabay inkastoo ceelku ka cabay tahay aadan curadkiisu waa nabiyullaahi aadane inkastoo ceelku ka cabay tahay aadan curadkiisu caqabadaha haysta iyo markaan baaray ciriqooda hay'adaha curyaasheen sanaag cali hiiraan ismaanow ninkii caaqila iyo curud ma daayaan codkarkeenna wiilkii noqda sooma caan baxo cagta hoose iyo waxay gashaan meel ciriiriya cabdi maxamed aar bay ciraaq uga cadgoosteen cabdi maxamed aar bay ciraaq uga cadgoosteen aynabiyo burciyo soo laway cimid ahaayeen inkastoo bulshadu caajisin oo la carabaabayay sheekh bashiir kuwii cunay ayaa soo kar celiyeen berberey camuudiyo rartaan deeradiyo cawsha carab dalab leh berberey camuudiyo rartaan deeradiyo cawsha inkastoo ciqaab kala kulmaan lagala cal waayay carab dalab leh waa caadada cuurka reer Yurub hargeysay carinayeen misana ka caga jiidaane inkastoo cindiga ka og yihiin ciidansanayeen booramay culum siinayeen lagaga ceeshin inkastoo aqliga kaashadaan way caamo noqon weyday
carta iyo Djibouti baan tagay iyo cali sabiix fiid inkastoo cirkay sahansadeen oo nabadii ceegaagtay caadi bay afkeena ka yihiin caga ku taagneen dhaqankii bay ceel kaga rideen cidina gaadheen rati coobo weyn bay isdheheen caynsadoo rare ah Faransiiski ciyoon kama tagin ciidamo u joogay waxaanu aaminsanahay ama sidaan u naqaano de xorriyadda haddaynu aaminsaneen inay wadan ay tahay in ciidamo joogaan oo qori caaradiis cid lagu maamulayo ama dhoobada lagaga gudbayo caadi bay afkeena ka yihiin wuxuu yiri Djibouti carta iyo Djibouti baan tagay iyo cali sabiix fiid inkastoo cirkay sahansadeen oo nabadii ceegaagtay caadi bay afkeena ka yihiin caga ku taagneen dhaqankii bay ceel kaga rideen cidina gaadheen rati coobo weyn bay isdheheen caynsadoo rare ah Faransiiski ciyoon kama tagin ciidamo u joogay Djibouti waa saan idin sheegay waa ra'iisul magaalada geyga Soomaalida waxaan leeyahay haddii qodax ku muddo ama kugu jabto ama jeerin ku muddo ama qori ku muddo sidee u soconaa waynu fadhiisanaa ama heetina ama dhutina Soomaa ya haddii ka waran xulku joogsato ama caabuq ka galo cagta ka war wad haaraysa Soomaa ya waa ra'iisul magaalada geyga Soomaalida degto Djibouti laakiin de Faransiisku ciidamadii uu kala baxay mooyaane haddii laga haysto ama wadan haddii laba qodob ama saddex qodob ama afar qodob ama shan qodob gacanta lagaga dhigo way adag tahay siday u helaan de madax banaani ama isu maamulaan ama cid uga maarmaan waa mid koowaade haddii manhajka iyo waxbarashada laga haysto waa mid labaade haddii dhaqaalaha gacanta laga haysto waa mid saddexaade haddii habdhaqankaaga iyo xeerkaaga iyo dastuurkaaga soo fargashado ama wax lagu yeesho waxay ka mid tahay waxyaabaha ay adag tahay sida ku sheegataa ama ku sheeganahay xornimo ama madax banaani waxaa jirtay waqti la soo maray la isku gumaysan jiray qori caaradiis laakiin waxa bedelay qalin caaradiis waxaana si bedelayeen wada ognahay tii hadda la isku gumaystaa waa hab fikir iyo maskax la isku gumaystaa waa meeshuu lahaa gabyaagii qarnigii gumaystu ahaa qoriga liifkiisa ma aha qaabadii hore hadda qoladii Berlin qalin baa qarwaantii bedelay qaac ka baxaya qorshahoodu waa qabo qalin iyo qaadan kari waa qofkii damiir laba in qof galiyaan qosol lagu helo qaran hadda ugu qancaysaane haddii uu askari yahay qabiil qaran cali sheega marka walaalaheen reer Djibouti jiilkeenan inaga ah waa dhif iyo naadir wax ku hadla af Soomaaliga ama ku sheekaysta ama ku haasaawa ama ku dooda laakiin waxa laga dhigtay oo maskaxda loo degay sida loo degan yahay degmo ka mid ah Paris sida loo degan loo degay ama loo hantiyay kuwa ay dhalayaanna deeynagoo ama u gurbanaa ama baraarujina sida iyaba inuu soo gurmadeen ama inoo baraarujiyeen inoo dhiir ama inoo garab istaageen oo kaleeto inaga hoos wax ugu sheegna iyo meelaha laga haysto haddaynan intaas samaynin waxaan u malaynayaa jiilka xigaahi inama sheegan doonaan faaqaas guri doonaan xagaas u sii jeesan doonaan marka waa nabad in Ilaahay u siyaadiyo waa dhisan tahay Ilaahay u siyaadiyo ku faraxsanahay laakiin caqabadaha haystaa kaliya waxa laga soo galay labada qodob oo ah xaggii manhajka iyo waxbarashada iyo xaggii de habdhaqankii iyo dhaqankii iyo xeerkii iyo af Soomaaliga iyo wixii rati coobo weyn bay isdheheen caynsadoo rare ee Faransiiska ciyoon kama tagin ee ciidamo u joogay
wajaale cashuurta adiis oo calan u saarha wajaale bay cashuurta adiis oo calan u saarha haddaan dhaho hadeer waxay hoos tagaysaa meesha la yiraahdo salahan boorame ama saylac ba waxay hoos imaanaysaa ama de arta oo Djibouti kamid ah ba waxay hoos imaanaysaa degmahan waxa kamid noqonaysaa 17 degmo ee Muqdisho suurtoobaysa wajaale iyo adis inta jira waan naqaana Soomaa waxa laga maamulaa oo duqa degmada ama maayarka adis oo maamulaa oo haysto wajaale hoos timaada inta ka dhaxaysana waa maamul gaar ah Soomaa kii ormada u dhaxeeya kii Soomaali galbeed baa u dhaxeeya haddana tuubadaas afka u dhigatay intii waxa laga soo dalbootiyay baa la yiri wajaale waa degmo kamid ah qayb kamid ah Addis Ababa baa fiidka laga xisaabiyaa waxa maanta soo galay waxa la qabtay cashuurteeda iyo dawladda hoose maamusha marka wajaale cashuurta Addis oo calan u saaraa inkastoo culayskii badnaa laga codroonaaday inkastoo culayskii badnaa laga codroonaaday cudud laguma haysteen dhulkii ceelasha lahaa amxaaradan inkastoo culayskii badnaa laga codroonaaday amxaaradan cawaanta jigjiga nagu cashuuraya ama somtan ceegaagta xamar ceel cadiyo jawhar cudud kuma ay haysteen dhulkii ceelasha lahaa casarna ma ay haweysteen baan ciidan leenahay casar lama haweysteen ciidan leenahay waxaan maleeyahay ku dheereedo idinku baalkeeyay afarta xogan caawado iyo washadeedii ma cadeeyay ciilkan qabo iyo kuwan caadaystay afar kalena ciriqan soo helay iyo washadeedii culimadu hadii ay bulshada ay cilmiga siiso abdi xayyi sidiisi haday caadka uga qaado aymadana ilaaha baa hayay caadilka u tuugto cirid lama hogteen iyo kulayl meel ciriiriya ayd lagama qaateen kuwii diinta caasiyay 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 على لما هوس دكتين قال عدي دير على لما هوس دكتين قال عدي ديره عصبكي كبخay jawhar baan laga caraabeen aydi uma tahriibeen dhul kale oo lama ciqaabeen aydi uma tahriibeen dhul kale oo lama ciqaabeen culimada xaqooda bulshada laga cunaayay casharada ku baxa Carabigan cidii is weydiinin Chinahan sidii caaradii samada ceegaaga sida aboorkii cishaha cagabriyoonaya cadadkooda nimankan hadeer caalamku aqoonin cudud looma sheegto ma jiro dul cunsuriyaane China hadda aad ka san marka waxaynu taabanaaba leeyahay made in China ay ku qoran tahay teemiyada ma inta sixdeen subaxii bay kaceen iyagoo wada laamiye ah wada baabuur ah wada military ah wada booliis ah oo ilaahay sidii qoomkii reer Bani Israa'iil nabiyullaahi Muuse miya asmada lagu xiriir laga keenay China arteen waa maya waxa laga yaabaa inta soo mareen ka badan in soo maraan laakiin waxa kaga bixeen dadaal Soomaa waxaan ku dardaarmayaa marka mid qodob ay ku dardaarmayaa mid waa idin ka digayaa midna waa inuu ducaynaya mid waa ku dardaarmayaa inaydan isdhiibin niyad sabin dabcin dheelin go'aankiina sidii abaan burci ee khayraasiye aad ku arkaysataan ku mintidaan minna waa idin ka digayaa waxaan idin ka digayaa inaad fikirka haysaan iyo waxa laabtina ka guuxayo aan ogahay inta ay leeyihiin iyo wanaagooda inaad ficilka ku dhiiran wadaana waa idin ka digayaa midna waa inuu ducaynayaa waxaan ugu ducaynayaa inuu Ilaahay dambigeena dhaafo
dembiga waalidkan dhaafo dembiga muslimiinta dhaafo cadaab aakhiro cadha waalid iyo camal shaydaanba ilaahay nabadgeliyo ilaahay colaadaha iyo burburka iyo kala qaybsanaanta iyo tafaraaruqana ilaahay subxaanahu wa tacaala waynu kusoo daalanahaye albaab khayr qaba iyo xasilooni waarta iyo horumar iyo kala dambayn iyo barwaaqo inoogu bedelo qalbigeena iyo qulubteena loo mideeyo uurkeennana waxaa ku jira ee xumaana ka xaadho wanaag inoogu bedelo iyo samaan kuwa fikirka ay hayaan ficilkiisa ku dhiiradana inaga dhigo kuwa midhaha ay beeraan la goostee la gurtana inaga dhigo kuwa wax dheeraada ka bedela dariiqii iyo jiilashii inaga horreeyeyna oo inaga dhigo jiilkeennan inoo rumeeyo inoona hirgeliyo halhayskii ahaa ama murtidii odhanaysay sahan baan ahaa dhowr sanoo tegey sahan baan ahaa dhowr sanoo tegayo sabuul baan beeraa sabuul baan beeraa sanada baxo oo sabigi gurtan saa dambe dhalanoo saansaan baan arkaa aan wax badan sugayo sadkeedaa go'ay sidigtay maadiiqo insha allahu saa dambe curan waxaan ku soo gabagabeynayaa waxyaabihii ama qisooyinkii ama dhacdooyinkii ama go'aanadii igu saamaynta badnaa mid iyo laba ka mida idamalle waxay ahayd raalleen ahaa haddaan ku daahiyey waxay ahayd 27 Juun 2019 waxaan joogay magaalada Muqdisho waxay ahayd qodobada waxay ahayd waxyaabaha igu dhaliyay inaan socodkaas sameeyno wax ka mid kamida waxaan wada joognay habeenkaas halka ninka ka soo jeeda oo shoodhahayga ama Shiine ama Ibraahim Xasan Ibraahim waxaan qaab hawaalo waran u tagay gobolka cagaaran Gabiley gobolkii aan wali ku xasuusto haddana aan ugu bishaareynayo halkan ugu dirayo fariinta haddii qudaarta Itoobiya goday kuna faraxsana inay hooyadii taagneed Gabiley iyo togii la oran jiray Arabsiyo ku haysin midhaha iyo cambaha iyo babayga iyo liinta iyo mooska saas u dhinac yaala meesha dhulka kale ama aan arkayay iyadoo caano iyo lagu gadayo iyagoo ay ku faanayeen gobolka wax soo saarka una haysteen haddana aan wax uga qirayo inay suuq heshay baa xalay habeen ku sixday oo la sheegay in qudaarta Itoobiya ka imaanaysa xogaa wax iska dhibeen ama ay gabaabsaday ama ay saameyn ku yeelatay waxa uu soo dhacday markii aan soo xasuusto waxay ahayd hooyadii iyo wiilkii taagnaa ee gelin la beerta falan iyo gelin wax baranayay inuu maanta helayo suuq halkan aan ka leeyahay war ilaa gaarsiya bari iyo sanaag ba gaarsiya qudaartaas oo haas dhiibinina reer Gabileeyow hanad ka daalinina wax soo saarka aan markaatiga ka ahay si dhexmaray ee samayseen waxaan u tagay gobolka Gabiley 27 Juun sanadkii 2019 qaab hawaalo waran oo nin kamida asxaabta ay joogtay uu iga soo wacay fogaan arag oo xidhnaa 42 sano la xidhay isagoo 18 jir 1977 xidhnaa 42 sano xabsi ku jiray baa wuxuu soo baxay 2019 bishii 6aad 23 wuxuu tagay Gabiley markuu subaxii soo kacay la rabay tibahan laga jaro loo dhaqo wuxuu yiri waxba aysan leenin hana ay jireen waxaad geesaan gaari ee dalba madaxtooyada fil Soomaaliya iyo madaxweyne Maxamed Siyaad Barre iyo haleegeeyo halkaas ayaan ku meeran doonaa kuna jiran doonaa waxa la yiri waa taqaaniin jiilashan ama dhalinyarada ee way ku qosleen marka waxay arkeen malaha nin xogaa isku dhaxyaacay waxay dhaheen marka waru ninkan isku dhaxyaacay qabto timaha laga jaro shan xabo saabuun ugu qubeeyay qolaha la galiyo nasiima ha qaato laakiin isagu wuxuu ka tagay ama wuxuu waqtiga 42 sano u bixiyay waxay ahayd dhulkiisa uu joogi karay laakiin waxay ahayd inuu beero seed inuu naftiisa u huray
taas inuu ka dhabeeyay meeriskii ahaa dhamii marba ka yiin dherigu xaraan wuxuu sugayay marka wixii intaas uu naftiisa u huray xabsigan ugu jiray inuu midhaheedii maanta arko wax kamid ah goostana waxa la yiraahdaa marka war meeshan waxa la Soomaaliland baa la hayo xamar way go'day tan waa gaaro waa laba dawladood oo sagaal kala madaxweynaha ka dambeeyay maxaa siyaa aakhiru ka de Allah naxariisto u dhacay marka isagoo isma dhibin laakiin wuxuu yiri waxa sameeysan asxaani sameeyo gaari dalba kaal xamar igu qaaday dalbo xabsiga ka soo baxay ridis igay ana galay su'aasha inaan weydiiyo ayaan sayni la faras uga qaatay goor habeenimo ah waa soo dhawaada waxaan tagay gabilay albaabkii baan garaacay ninkii fogaan arag u deganaa uu iga faray wuxuu maxaad ahayd waxaan ku yiri waa muwaadin Soomaaliyeed mid kamid ah kuwa u beerisay midhaha siirka dhulka ugu sii riday weeye waxaan ka rabaa inaad ku weydiiyo su'aasha ah maxaa kugu dhaliyay inaad tirada xabsiga 42 sano ku xidhnaa dib lagu celiyo waxa jirta marka suugaanta qayb kamid ah qofayn haddaan ka warramo maanta Cabdiqani Cali Aadan ama Fiiqow ama Saylici ama Cabdulqaadir ama taagane oo jooga bari ama mudug ama baayo boqolba jooga aan qaab hawaalo warran ugu soo warramo waa qofayn ama aan dhulka hadlay idin dhaho wuxuu isu dhibay marka fariin waa 12 qodob oo tagta ah 12 taagan ah 12 tala ah 12 tusaale ah 6 tala ah iyo 12 timaada inta laga haysan 12 tagta ah 12 taagan ah 12 tusaale ah 6 tala ah 12 timaada ayuu ninkaas halka iga soo dhiibay oo uu ku qeexayo waxa su'aasha kelmaddaas ku dhaliyay waa gabay la yiraahdo masalo wuxuu ka bilaabay oo ku bilaabay ninka fogaan aragihi wuxuu yiri cadaysow buu yiri cadaysow mariid lama cuno iyo midho dhukaaleed ma qorna looma horo jaalka iyo midabta irmaan hadduu gabay martabo leeyahay lagu midoobayo tima cadow muraayada haday ficilka muujaan daaxuu mariyay suugaan milgale maalin iyo leel dhagihii malaasin wanaag ma muraadaane midigtaadu waxay xoogsataa meedha gaajida ma facmalaha aadmigu waxay ku mintiriyaan magaalada hashaada ka wacan meedhanaan kale dawladnimada muran maaha iyo maandhow reer hebel burci baa maqaam kale jeexay marinkii waa tuu midoobay ku yiri meeriskii gabay anna waxaan la meehaabayaa waa midoo kale adduunyadan maraabaysan ee madaxu hooseeyo adduunyadan Mareykaan siri maamul kaligaaba adduunyadan muslimka iyo gaal la isku kala miiray adduunyadan munaafiq kibray ee mumtalin waayay adduunyadan sawaaxili mukula maara laga waayay adduunyadan sawaaxili mukula maara laga waayay adduunyadan ninkii magac lahaa yahay miskiinkeeda adduunyadan ninkii maal lahaa maanta yahay caydha adduunyadan ninkii muuqan jiray mootan yahay jaale hadduu maxamed noolaan lahaa ee muqdisho joogo aydidna maamul lahaa ciidamada maanta taliski migisaan ogaa tuu ku dhigay madal dharaareeda taliski libaxda matalay bay magan ka yeeleen aan milicsi ku soo hordhigo maalintii godayay taliski libaxda matalay bay magan ka yeeleen ama macnaha dawladnimo garan lahayn maanta saddexdii marayd baan hadeer naga maqnaateen waa Djibouti Soomaali galbeed iyo Wajeer iyo dhulka loo yaqaano NFD saddexdii marayd baan hadeer naga maqnaateen imaaradu muujin awood namana maageen Ingiriis macdaarada berbera kuma mushaaxeen Faransiis maraakiib badaha kuma midhaafeen Chaynuhu malay kama gurteen kama macaasheen Talyaanigu ma laayeen midkii doon ku soo mara marmarsiyo kama ay dhigteen waa mintidana isma soo mutuxiyeen wala wiil Mareykani macdan isma soo mutuxiyeen wala wiil Mareykani
كما دوقيين مردحي محاستي هيران معدن كما قلتين مدق انت موتك عيان حيبان كسي قرية حكم دي هايد 8 ساعة وهبينيمو بواحد سعوني يا ويل يلا بك كسب بحب الدوغلي oo mootooyin reer wata anna waxa laga dhacayna ana xamar joogo waxa laga dhacayay hadaad hiiraan murto madaxa ku go'an timaa siixir luugal khamiis si qaado garka deyso kii Mareykanka 10 saac bani mooto ku maraya oo toosh wata wuxuu baaranaya dhaxaantii iyo qalabkii saacadii wata ana maxaa laga dhacayay hadaad marto way caleeha aakhirad kala ka soo heesaysa diinta cabasa oo kan malakamoodka aniga meesha ay taagani oo aniga eeganaya kana xagu ka maray macdan kama gurteen mudug intay mooto kiciyaan mid kuma duqeeyay mar dhaxay maxaasti hiiraan ruush kama maqnaadeen xiriyahan magacu jooga ruush kama maqnaadeen xiriyahan magacu jooga militarigan muusanaaba iyo cunaya mirooga amiso mushaar kuma hesheen magac ilaahay mahma hindiya uma noqdeen magac xumaantooda ma doonayo inaan idin yad shabiyo wixii caawdan de idin wanaaga ka sheekeynaan aan idin noqon dooni maayo laakiin waa dad xog iyo taariikh ay la wadaagayo dhacdayna taaganna imaana doonta militarigan muusanaaba iyo cunaya mirooga amiso mushaar kuma hesheen magac ilaahay musafani mataal kama dhigteen madal dharaareed maama hindiya uma noqdeen magac xumaantooda waa maalmaha musafani ama Uganda oo aynu naqaano ama ogeyn u lahaa wiilkii dhirbaaxay gabadha Uganda iska ay joogay Kampala joogtay uu yiri Soomaaliya u dirana ana Soomaaliya waxay noqotay meel habar kasta bad ay musafani mataal kama dhigtay madal dharaareed maama hindi uma noqdeen magac xumaantoodu afarta markadii aan la rabay madaxa moo saaray taariikh ma guuraanay mahadadeedii murtida xala suugan milgalay minacsigeedii sida armuriyada iyo maaraan ahayd afar kale lama afkaan igin hundiskaydi haye shimar xala taagan baa laga mid qaatay masalooyin dhowr oo ka idin magowsin masalooyin dhowr oo ka idin magowsini warbaldaya mudnaantii cisigii meesha laga waay warbaldaya milgii aan lahayn moolka lagu tuuri warbaldaya xurmadii ma fiican maanta laga doortay warbaldaya midnimada lahayn maashi midnimada lahayn mooshin laga keeyay warbaldaya kuwii maahir dhacay ee muruqa noo sheegtay iyadoo inoo muuqatay nagu hormaalaan cali mooge mid uu yiraahdo marxaati yahay reer xalata siixdo la maray maganayaa sheegay maxasi caruuraha kala maganayaa sheegay miinada walaalka u qaray maganayaa sheegay in marxaati beenaal furo maganayaa sheegay atomigiinu maamulay maganayaa sheegay subhanallah intaas oo mas'uul baan arko maanta wada taagan haddii aan macnaha looga baxo magosiyo haddii aan macnaha looga baxo magosiyo waa tusaalihii laba toban tusaalaha ma shaqadu markay kugu dhacdo ee murugta hawshaado ee meel cidhiidhiyan arrin kugu maraabayso alla mudan waxaad maalinta midug taagtaa marka uu muraadka lahayd midugta ku saaro ee ku macinay mirdi xadaad ku mulaciyeeyo alla mudan inaad mahadisaa maalin iyo leeyli markaas sharcigu waa mid qura maamulka yahay rugta madaxa dhaafan ka bixin muruq xanuunkiisa waana meesha aan taagana muruq waa ceeb waana meesha aan taaganahay muruq waa ceeb ma deeq kuwi naga dhacay ee midaqida gooyay maantana si uu wada mulkiyo miinada u keena ee maxasta naga leynayay madaxa gooynaya magacyana u kala qaybiyay iyo maamul goboleedo nimanka mushaharkooda ay carabi miisaanto soo inuu kala miirana xubadod ma soo inuu midnimo qaaliye mundisna ma soo inuu miraha beerano muruqsana ma soo inuu qabiil waa mugdiye muqlisna ma afarta markadii aan la rabay madaxa moo saaray taariikh ma guuraanay mahadadeedii murtida xala suugan milgalay minacsigeedii sida armuriyada iyo maraan ahayd afar kale ma afkaan dhigay hundiskaydi waa timaadadii marunban anoo midhan iyo maarayaal kacin marunban saddexda naga maqnay aan mulkiyeena marunbay maqaam dawladnimo ma dhow heleynaa marunbay muqdisho Moscow iyo China maalgelin marunbay Mareykan iyo Yurub magana weydiisan marunbay Talyaanigu mar dhexe noqon mataalkooda marunba madarada Hindiya muusan u bixi marunba England meeday iyo maarag ay noqon marunba magaalada Germany maabka laga weyn marunba yuhuud midadii meel la dhago weyn
marun bay Malaysia tahriib miyigu soo aadi marun bay Malaysia tahriib miyigu soo aadi Myanmar makiinada ag dhigan mudsado liqa milyan iyo milyan qof soo muslimayaan markaas islaamku mid dunida ma shayn military cudud muuqatana ma dhow helayna kitaabka alle waa ugu mudan sharciga la isku maamulo manhajkeenu uu noqonayaa maadad diiniya manhajkeenu uu noqonayaa maadad diiniya muddo suga yar sidaan maganahay waa mas'alo weyne idan alle marxaatu ka noqon muddo ku dilin haddii aad si noolataan sanad iyo bilo iyo maalmo ka bacdi marxaati baad intaan sheegan insha Allah ninkaas uu sheegay ka ahaanaysa has dhibinina haniyad jabnina hadaalinina kumentida waxa idinku leeyihiin ka dhaadhiciya oo ku dadaala inaad gadaan oo suuq geysaan inaad meel mareysaan imtixaanka ilaahay qofka uu imtixaamo bini'aadanka ah ama colaadka ku imtixaamo ama abaarka ku imtixaamo ama waxlaana ku imtixaamo ama cudurka ku imtixaamo sooma haddaad markaad waxaan saddex jeer baan istaagay anigu albaabka isdhiibida waxaan sidii raniyo waxaan dadka waxaan kaliya maxaa ku waalay arcalnu hadaale saaxib waxay rabaa raallahu saddex jeer baan albaabka istaagay oo aan garaacay raniyo naga dadka ma waalan dadka waalan waxay ahayd maalintii saddex jeer marka saddexaad shaqo laga joojiyay dan gud laga joojiyay xamaali baan garafratan ahaa waxaan ahaa cunta kariye ama waxa u taqaaniin sheefkooga xirfadaas ku shaqaysan jiray iyagu saddex jeer inta u dhaxaysay sanadkii 2016 iyo 16 baa markaas shaqo laga joojiyay war calankana wadayo waxaan ula hanayo dehnaa soo galay raadina soo galay ayaan meesha laga qaxinay orado ama ugo iyaga ama de soo dhigo dhig soo xidho dadka dhinac ka raac shaqada dhinac ka raac mid suumada gaar ah ka raacaan ka yeelan sabab ka mid ah saddex jeer laga joojiyay waxaan tan guri soo tagay waliba qaad soo qaatay ma fikir waxaan siiyay kaalin ma adaa waalan dadka waalan gooreystay saac tahay baan waxaan soo xasuustay murti laga qoray in reer burcaa oo ahayd raxmaanka alle risqa bixiyo aniga hay ugu reebin liberaad waxaan siiyay horta saaqada meelaha baa ku siiyo bixiya mise tii maqaayahana bariisku ka xiraya intaan wacay iga qaban safariin ugu diray hadda saaqada adigu iyo hayso saaxiib saddex dhagax waa weyn ka soo qaado kor ka saarsaa laba ka sunnada waan tukaday salaatu xaaji waxaan ilaahow waxaan anigu dareenkan anigu iskuma abuurin dhaqaale ku dooni maayo magac ku dooni maayo maal ku dooni maayo xilli uu yimi goor la keenay toona garan maayo laakiin waa waxaan iska reebi kari waayo aan iska bedeli waayay haddii aan ilaahow agtaa ugu dhawaanayna albaabada samaanta iyo khayrka aniga inta nala midba noo furo noo sakhir inta xakile waxaan ugu adkeyn haddii aan agtaada kaga fogaanana aniga inta la midba ilaa wax dhaam noogu bedel debriski aan iska ciideen darto isaga haddii aan kaga fogaan agtaada kaga fogaanano haddaan ugu dhawaanana haddii dacarka kharaar tahay kuwa u mara naga dhig waxaan ilaahay marka waxaniyad jabanina muhiim ma aha inaad hool buuxisaan kumanaan qof oo xaflad ladin qabto laakiin waxa muhiim ah 5 qof haddaad hesho saddex kamid ah ficilkii iyo fikirkii ay qaadado siirkiina beerto midna biyaha waraabiyo siirka midna galiyo ciid qodo wuxuu ka qaalisan yahay 1 qof ka qaalisan yahay muhiim ma ahan inaad 1 qof hool soo keentaan wax ka muhiimsan 5 qof hadaalanina hangobeedow axmed soo shaqeynay aad baan ka mahadcelinayaa halkan mar salaam mar labaad mar saddexaad salaam boqortooyo salaam kalgacal salaam ballaaran celin ballaaran aan ugu dirayaa intii socdaalkaas nagala qayb qaadatay ka mid tihiin intii nagu sogoontisay intii nagu soo dhaweysay meel ay joogaan ceel iyo arshin gobol miyi iyo magaalo ceel iyo arshin gobol iyo tuulo intii meel ay joogaanba waxaan leeyahay waxaan idin haynaa xushmad waxaan idin haynaa xasuus aan go'ayn waan idin xiisnay waana insha Allah hadii lahayd ma sii noolaano mar labaad iyo saddexaad mar afraadba waanu sii maranaa waxa gala jooga dadkii ugu soo dhaweynayay gaalkacayo abwaan taagane ilaahay khayr siiyo waan fariinta u sii dhiibaya isagana war nimankii reer gaalkacayood saaxiib waan ka guursanaya waliba inaad eere salaani gaarsi guriga hayst diyaariya aad u baahantiin
beled weyn ma nabadba gaduud ma nabadba galkacyoy ma nabadba so salame dadkaygo ma nabadba hargeysoy ma nabadba saasoy ma nabadba